waxaan idinla wadaagi doonaa insha allah 3 qodob markaasi haddii aad qaadato amba ku dhaqanto kuu fududay doono inaad quraanka kariimka ah si sahlan ku barato. kuma dhahayo maalin amba maalmo, laakiin waxaan ku leeyahay kaliya 3 qodob haddii aad qaadato si sahlan ay quraanka ku baran doontaa weliba muddo kooban. 3 qodob waa midda koobaad horta go'aan qaadasho, inaad leedahay go'aan iyo himmo sare. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala maguu leeyahay wa ila samaa'i kayfa ruficat, uma jeediino sida aan samada u kor yeelnay. macnaheeda ma ahan sidii loo kor yeelo kaliya bis waxaa waaye himmo sare yeelo. samadan sidii loo kor yeelay himmadaas oo kale yacni han sare yeelo, yacni kor u kac waaye. inaad himmo sare yeelato oo aad waxaa la dhihi jiray ninkaad waxar ka rabto awraa la weydiiyaa may ahayd. ninkaad ari ka rabto geela la weydiiyaa si uu kuu siiyo ariga aad ka rabtay. mugga horta himmo sare yeelo, go'aankaaguna ha ahaado in aad qur-aanka qaybto. waa la qaybi karaa oo allah subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar. suuraddaas ayay ku jirtaa ilaa 4-5 meelood taqriiban ayay ku soo aroortay. marka ilaahay maa been sheegayo kalla inay fudud yahay qur-aanka ayuu noo sheegay. fahal min mudakir, qof raacinayo oo digrigaas rabo oo ku waansamaayo ma jiraa? adaa la weydiiyey su-aashaas, anaa la weydiiyey, dhammaanteena la weydiiyey. mugga horta midda koobaad waxaa waaye waa inaad himmo sare leedahay. midda labaadna waa inaad qur-aanka ka barato macallin. kaligay asbaraa, youtube-kan galaa, xarfaan dhegeysaha, mar kastaba uun macallin amba shiiq qur-aan akhrihayo wax ka dhegeysaha ma jirto. waa inaad hal shiiq amba hal macallin hal qiro inaad qur-aanka ku barato. qiradaad rabto dooro, laakiin hal qiro inaad qur-aanka ku barato. inaad hal macallin qur-aanka ka dhegeysato ilaa aad ka dhammeeyeyso, ama ugu yaraan intaad ka fahmayso inaad kaligaas wadi karto. waa midda labaad taasu. midda saddexaadna waxaa waaye inuu qur-aanka mugaad barahayso uu kuu lahaado ula jeed. inaadan u baran uun qur-aanka waa la bartaa iska baro, hebelaa bartay qur-aanka mugul la akhriyahay waa cudmac yahay maasha allah. inaadan u baran ee inaad u barato ula jeed. ulajeedku muxuu yahay qur-aanka loo baranayo? ulajeedka qur-aanka loo baranayo horta midda koobaad waxaa waaye in lagu cibaadaysto. oo allah subxaanahu watacaala in lagu cibaadaysto oo ilaahay lagu baryo ayaa qur-aanka loo soo dejiyey. waa midda labaade waxaa allah subxaanahu watacaala qur-aanka uu soo dejiyey in la isku xukumo, oo ay noloshaada midda guriga ah, midda gasarkaaga ah, midda deegaankaaga iyo intaad xukuntaba in laga dhaxarka qur-aanka oo aad qur-aanka isku maamusho. mararka qaarkood waa dhacdaa in aadan awoodin inaad isku xukunto qur-aanka. tusaale, meesha aad joogtay ku xiran tahay. waddamada qaarkood amaba xataa aan hadda kasoo qaadna soomaaliya iyo meelaha waddamada islaamka lagu sheegayo kitaabka qur-aanka in laysku xukumo ma badna. inta badan ma sheegin tuulo ama meel yar, laakiin qofka qur-aanka lagu arko asoo wax ku xukumaya waxaa leeyahay shaati gaabtimiya yaana ku dheeraanine. qur-aanka in laysku xukumo horta inaad u barato oo aad ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa ku farsoonaato. sidoo kale inaad u barato inaad naqato allah subxaanahu watacaala wadaygiisa ama saaxiibkiisa. waayo madaxweynaha sidaad ogtihiin walaalayaal, qofka u dhow ee madaxweyne ku-xigeenka la dhaho ama xogayaha la dhaho inta badan wuu uga sokeeyaa dadka kale. inta badan dadka kale waa uga sokeeyaa. mugishaha lacaba amba waa u dhow yahay amba xoogaa meelo qajaftiiska maqlaha u joogaa. ilaahina wuxuu dadka ka dhex doortay ahal, sida aan ahalka u leenahay oo xaasas iyo caruur iyo u leenahay ayuu allah subxaanahu watacaala wuxuu dadka ka dhex doortay ahal. ahalkaas waa ahlu qur'aan wa khaasatuhu. dadka ahal qur-aanka ah ee qur-aanka akhriyo ee habeen iyo maalin aanaa alleyli wa atraafa naheer la akhriyo ayuu allah subxaanahu watacaala ka dhex doorta dadka. waa inaad isku qaybto dadkaas inaad ka mid noqoto. sidoo kale walaalayaal, qur-aanka qofka xifdiyo ee ku camal falo darajat nubuwiya ayuu diris leeyahay. oo nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh jannada firdaws alaclaa oo ku jiro
ayaad waxaa la tahay diris koba dhigadka ha naqato midda ku xigta ha naqato meel xoogaa aad media ka arkaysa ha naqato yacni dadka qur-aanka yaqaano oo qur-aanka ku dhaqmo darajo kore ayay leeyihiin oo aan la sheegi karin muga inaad horta darajadaas inay ka ahaato qur-aanka barashadiisa oo aad allah subxaana wa tacaala inaad ugu dhowaato inay ka ahaato iyo sidoo kale inaad leedahay ha ka tegin raatib joogtaha qur-aanka inaad leedahay ayaa qasab ah maalintii jalaad jus 2 jus intaad awooddo laakiin raatib joogta in leedahay lagaa rabaa oo aadan ilaabin